inta ku xiran channelkan Explore Option Somali. Insha Allah waxaan doonayaa inaan ka hadlo website-kan oo noqday already website oo fake ah ama scam ah. Website-kani waxaa jirta maalin dhaweyd inaan ku yiri laba website waxaa jira damaanad in la siiyay. Laakiin website-kan waxa uu damcay inuu damaanada uu qaadayo inuu keligii siiyo si aan anigu keligii mar walba lacagta ula baxo dadka kalena wuxuu doonaa ka samaysto ama qaabka doonaa ay ula dhaqmaan. Way cunto min weyday horta website-ka nimankani markii hore aan la hadliyay qaab kale iga hoos saareen hadalka waan ku qancay waan is amaanay hadal baan mas dhaafsanay laakiin already nimankan maanta in dhalinyaro caawanaya ii yimid wuu ii sheegay ciladaas haystay igu yiri waan la hadlay isna iyo business bay gadaan tan shaqadaada maahan waay baan ku yiri qofkan waa qof aniga YouTube-kayga ku xiran waa qof teamkayga maraba maartay inuu maartay wadada hore aan ku soo dhibtooday oo iga xaliseen inuu dib ugu noqdo ku dhibtoodo waxyaalo badan baan ka wada hadalnay laakiin nimankani already aniga iga diideen inay qofkaas dhibkiisa xaliyaan all the way nimankii markaa aniga nimankii waxaan noqonay inaan qariis ku noqono oo nimankii anigu maartay lacag aniga la ii saaro mar walba aniga waxba ii tarmayso oo markaas anigu faa'iido maartay kama raadinayo dhexdiina ama maartay inaad linkiga raacdaan faa'iido kama raadinayo faa'iidada aan raadinayo waxa weeye inaan ana faa'iido idinkuna faa'iidaan sidaa daraadeed website-kani already damaanadii aan idin lahaa wuu inoo qaaday ama wuu ina siiyey damaanad keligii bay ahayd laakiin damaanad teamka Explore Option oo dhan ma ahayn sidaa darteed anigu hadda haddaan may team idhaahdo kuma khamaari karo 87 qof lacagtooda kuma khamaari karo sidaa darteed waxaa dhacday inaan maartay already aan nimankii markii ay anigana maartay igala bixi waayeen aniguna aan nimankii la hadlay oo dhan walba kala hadlay oo si kasta ula hadlay already waxay keeneen nimankii aniga i blogaan linkiga waan soo dhigi doonaa screenshot-kan ka soo qaado waan soo dhigi doonaa Telegram-keena nimankii aniga waa i bloogeen user-kaygina imika haddaa idin tuso lacag $62 ay ugu jirta waad aragtaan available balance-gayga haddaa imika isku dayo inaan la baxo hortiinaan ku dayaaday waxay oranayaan user-kan waa laga saaray hawada xagga waxaa ku arkaysaa in maartay user-kayga ay nimankan hawada ka saareen lacagta already principal-ka iyo ah ama maartay aan maalgashaday xalay bay ahayd markaan lacagta maalgashanayay $60 interest-ga aan sugayna wakaas kadib waxay sameeyeen lacagta in nimankani ay lacagtii ay hawada ku cunaan ama lacagtii dhan ay ka saaraan meesha already-na waxaan ogaanay markaa website-kan inuu website scam yahay waxaa arkaysaa niman YouTuber oo waaweyn oo dhalinyaro Soomaaliyeed intay wax uga sheekeeyaan kadib intay nimankii website-ka heshiis la galaan ka aamusaya maartay oo aan dhalinyartii waxba u sheegin oo maartay hadhow dhalinyarta ku dhahan cilad baan haystaa soodigii damaanada noo sheegay ama soodigii website-kan waa real dhalinyartii maartay haddii doonaan aan ugu soo jawaabin ama aan waxba u qabanin saa darteed haddaan anigu $60 khasaaraya iyo haddaan $222 igu jirto aan khasaarayaba iyo haddaan $1,000 khasaarayaba aniga faa'iido iguma jirto haddii mar dhalinyarta Soomaaliyeed khasaarayaan ama aan khasaarayo faa'iido waxay ugu jirtaa inaan maartay wixii markaa lagu khasaarayo aynu iska moosno waxaa leeyahay daad Soomaalida waxay ku maamaadaa daadku intuu ku soo gaarin baa la iska moosaa marka aniga $222 halka igu jirtaa waxba ii tarmayso mar haddii idinka laydin dhacayo anigu inaan faa'iido oo dishiina ku faa'iido waxba ii tarmayso muhiimadu waxay tahay in aynu wada faa'iidno ama aynu khatarta ka wada cararno waxaan rajaynayaa midaan isla faanay insha Allah website-kan waan ka salgariyay xogtiisina waa idin soo gudbiyay waxaan rajaynayaa dhalinyarta ku jirta hadda maalgelinta ugu jirto haddii ay kala bixi karaan alxamdulillah haddii kalena inay ogeysiiskayga qaataan lacag dambana aysan iskaga shubin fadlan dad channel ku cusubtaa subscribe like and share and comment wixii su'aal insha Allah commentiga igu soo weydii haddaad cabasho qabtan insha Allah commentiga igu soo weydii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh